حسوق جلوجادين مال والبهرت ودنك مال والبهرت جلوجادين وكلهم بيدا حسوق وكسعودي لكن أنا وحدان وهين دلكي جلوجادين شوقي كل يدمر كنا وكما شاكين كروح جلوجادين كده عايز إذا ما كي يجور ريبة شاكين أما رجعها كل عضا أما قبلها كل عضا مركا أنا سوكو بهي هذا الكيجا جلوجادين بعطادي كده عضي هل يردان كتافته واحد شري قبضه قبل هذا اللي هذا كوس أو كلا أمول بيهايد المهي وأفكار كل شراء بالنفح المهي لو كده النفح وحكم ذا هايد قبل اللي هذا قريش لما تعناد بيكون شيء تدبها من مركز ملاذ على ساق طوال الدلي أد مركز لو شرقة عهد أنا بالله عادي حار إيه وحلو شوي ويكون دمر هبل المركب مرده كره afar iyo 30 nin baa halka ku dhimatay saddex dharaarood iyo saddex habeen baan meydkoodii loo gali lahaa gaadhka ka hayeen oo inaan aasnana loo diiday saddex dharaarood iyo laba habeen bay haysteen sidii bay kaga dul dareereen waxyaabaha aniga si khaasatan ay igu dhacay waxaa jirta maalin oo laba jeer iyo saddex jeer aniga waa la xidhay laakiin mar walba ilaahay baa si fudud iiga si deynahayay markii ugu badnaa 5 bilood baan xidhnaa laakiin maalinkii iigu darayd waa maalinka aan kooma galay 2 saac subaxnimo in la yahay iigu dambeysay 11 galabnimona aan layd ay maraysa aan dareemay markii aniga iigu dambeysay ee la qabtay gabadh baa layla qabtay in lagu hiya gamcaan intii la isku kana xidhay boga beerka la ii dhigay iigu dambeysay oo guri marka la igu jiiday intuu halka qabtay xarigi bartu isaga imaado lagu hiya gamcaan intuu jiiday iyo qol igeliyay in qolkii anoo la iga soo bixiyay oo 11 galabnimo tahay barandadiisa aala nin waardi ay ag fadhiyaan soo miirsaday gabadh yar dhuuban aad baan u dhuubnaa waxay ahayd 2007 dhamaadkeedii imtixaan baaban galahayay sideedaada marka ninka nooca axmaaraha nagu samayso oo macnihii military ha ahaadaan wixii dhibka geysanahayay laakiin ninka intuu xubintiisa taranka markii la xidhayo intuu saa u qaaday afka saa iigu galiyay yiri kan baa kulul ee kii u badaa ku bartay anoon ubi iyo waxaas baa aqoonay ilmo yar ah wuxuu ahaa nin Soomaaliya wuuna jooga xilbuuna hayaa haddaad milkiile tahay dadkaad milkiile ka tahay waa kuwee soo kuwaad laysay maaha ma kuwaasaad milkiile ka noqon kartaa ma gabadhaad kufsatay baad milkiile ka noqon kartaa ma ninkaad aabbihii iyo hooyadii adeerkii walaalkii dishaad milkiile ka noqon kartaa ma ninkaad agoonka aad ka dhigtay miyaadan ogeyn boqolaal agoona oon aabbihii iyo hooyo toona lahayn oo hadda kacayso wada qaan gaadhaysa ood adigu waalidkooda wada laysay oo jeeloogaadeen iyo ku laysay bannaanada iyo xabadaad ku laysay inay kacayaan maadan ogeyn maalin baa 8 subaxnimo intiina la istaajiyay anagoo 4 gabdhooda yaa salaadii maqribkana loogu aadimaysan u taagnay nimana naan aqoonin intay soo kaceen beelay anaga qabi jirro duurka ku qabi jir heblaye hebel anaa qabi ha soo kacday waan soo istaagay halkan atu kala loo yeedhi waan saan u taagnayn markii xaafadii tagna meeshii aan qolkan ku xidhnayn waxna fadhisiyaa la waay 12 saacadood baan taagnay xididadii baan istaagay haweenka kuumul raacaya meesha ku dhimanaya ilmaha yar hooyadii kafkeeda ku dhimanaya dhibaatadii jeelka ka soo dhacday wax loo adkeysan kara maahan waxaan ka sheekayn karna toona waxaan intaa ka soo wada dhibaatadii lagu soo dhacday ma koobi karee laakiin waxa iga sii daran waxa soo dhan kuwa maanta leh ninkii intaas oo dhibaato ummadda u geystay makarafoonna intay qabsadeen meel la fadhiya ee la soo daayo fikrad gabadh yar oo cunan lala baxay habeenkii bac intay u geliyeen holacii basbaaskii iyo quruurada burburay iyo baxay soo dhalaasheen baariidna lagu shubay bir intay ku jeexaan ka bugteen muraadkood bannaanka ku tuureen